Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabta kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaanu mar kaleeto markaa ku sharxi doonaa goosgooskii labaad maadaama goosgooskaani waxyaabo badan oo cajiiba aanu ku daawanay kuwaasoo u baahan markaasi in si saa-ida markaasi loo falanqeeyo marka muuqaalkeena ayaan dib ugu sharixi doonaa hadduu ilaahay idmaayo. Fadlan haddii janaalka cusub tahay subscribe noo saar hore haddii noola joogtay daawada muuqaalkeena la garay aad iyo aad ayaadna u mahadsan tahay intaynan gudagelin muuqaalka ka horena ku saliya xabiibkeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam hadeerna si toos ah ayaynu u gudagalna muuqaalkeena maanta. waxyaabihii goosgooska loogu daawaday ugu cajiib ka badnaa dilkii Sofia u geysatay markaasi gabadhii lagu magacaabayay magaceed muxuu ahaa Xaliima ayaa markaasi dadka aad u wareeriyay taasoo dadka qaar xaqiiqo u qaadanaya halka dadka qaarna markaasi ay u qaadanayaan waxaan wax riyo oo kaliya inay iska tahay. waa soo koobaya idil markaasi laba u kala qaad hore waxa kuugu sheegay riyo Sofia ay ku riyoonaysa inay tahay dadka qaarna waxay Sofia ma seexatay goormay riyoonaysa xoolaha seexdaan Sofia ma seexatay xakoodin waa fahmi karaa ujeedkiina Sofia iyadoo seexanaysa lamaba araga u maleynaya inaad ka wadaan sida filimka ay ugu soo biirtayba. laakiin waxa ogaataan Sofia walwal badan inuu ku furan yahay oo markaasi in sirteeda la ogaado maadaama naagtii baadiriyada ee gabadha soo barbaarisay baala gacanta ku dhigatay isla maraantaasna u badinayso wax walba in laga ogaado taasoo keenaysa markaasi maskax wareer inay ku dhici doonto isla mar ahaantaasina inay seexan doonto taasna iyada qiyaali kale oo maleynaa waa markaa tiini idin raacay. horta laba mid u kala qaaday in riyo Sofia ku riyoonaysa ay tahay isla mar ahaantaasina ay riyo ku arki doonto gabadhan iyada oo dilayso. midda labaad ee markaasi iidan laftirkeed xoojinaya waxa waaye mala awaalsanaysa gabadha lagu magacaabo Xaliima sidee mala awaal ku sameynaysaa maxaa yeelay goosgooskii horeeto laguma daawanin iyada markii reer kaaya dhammaantooda ay ku sugnaayeen teendhada horteeda Cusmaan iyo ehelkiisna ay dabaaldegayeen gabadhan goosgooska hor kamaysan soo muuqan. waxay u badan tahay markaasi qasrigii Sofia inay aadi doonto dharkeedii horena ay xiran doonto isla mar ahaantaas iyadii Sofia markii meesha ay ku kulmaanna ay tababar labadooda meesha ay ku sameyn doonaan. inta tababarkaasi uu socdo gabadhaani maadaama ay ogaatay in Sofia markaasi ay qiyaantay isla mar ahaantaas waalidkeeda saxda Cusmaan iyo Baala yihiin ay macnaha suureysayso amaba niyad ahaan ay gashanaysa iyadoo Sofia dilayso. tusaale dhaw ku siinaa gabadhan hadda ka horeeyta waxa ogtay markaasi iyadoo Cusmaan iyo Baala ka taqalusaysa in Sofia suureysatay hadda ka horeeyta markii Sofia ay dhehaysa waaye waa waqtigaad argoosan lahayd Cusmaan iyo Baala aad dil lahayd mar dhawey ahaydba waa markii Sofia hadda ka hor Baala xirin jirtay xasuusataan gabadhan waxay dishay Cusmaan iyo Baala waliba waxay ku dishay qaab oo niyo ahaan u dishay ma hayna si xaqiiqo u maysan dilin taasina waxay ahayd Sofia waxay markaasi mala awaalsatay isla sidaas oo kale ayaa gabadhan inta dagaalka uu socday iyadana waxay mala awaalsan doontaa oo niyadda ay ka sawiran doontaa iyadoo Sofia beerka markaasi gelinayso seefta laakiin xoogaa kadib hadan niyaddeeda dib ayay u soo laaban doontaa taasoo markaasi inaysan waxba ka jirin ayay sidaa ku ogaan doontaa aysan waxaan sameyn karin maadaama Sofia ciidan fara badan ay haysato meeshana ay joogaan oo gabadhan aysan markaasi u naxariisanaynin ciidankaani gabadhan mar dhow ayay reerkeeda heshay marka sidaa darteeda ma doonayso inay hadda reerkeeda si fudud ku weydo marka hanaga hartabo Sofia miyaa la dilay hadda inay naga hartaa u maleynaa oo barnaamijkaas aan iska soo afjarnay wax dilaa ku fikirin laba mid bay noqonaysaa ku dhahay inay labadan qof kala riyoonayaan tan Sofiana 90% bay tahay tan gabadhan 90% bay tahay macna riyo ahaan qaab aan labada saas ku qiimeeyaba adi 50-50 ka soo qaad labada dhinac way noqon kartaa hadda inkastoo aniga xalay markaas saxda saaka waxaan soo kacayba anoo xoojinayo markaasi tan oo ay mal awaalsanaysa isla gabadhan maxaa yeelay gabadha goosgooska hor kumaynan daawan iyadoo baxda ogeyn Soomaan marka sidaa darteeda daawada aad laftirkaaga dhankaas comments fikirkaaga waa nagu la wadaagi kartaa anaga wax baa saadaalinayna xalqada markaa ku daawanana waa xiiseynayna insha Allah in markaasi saadaashayna ay sax noqon doonto labada dhinac u kala qaad marka hadda aniga ahaan waxa si xoojin midda markaasi in gabadhan markaasi dagaalka inta tababarka uu socdo markaasi mala awaalsan doonto iyadoo markaasi Sofia beerka wax ka gelinayso laakiin aysan dhab ahayn markaasi waaye tan hore tan ilaa hadda kamaan tagin oo Sofia inay riyoonayso inkastoo adinka ay dhaadeen Sofia ma wariyooto iyada laftirkeedu waa jirtaa marka waaye dhanka kale Cala Adiin iyo Orhan markay isdagaalaan kadib Cala Adiin xanaaqi uu qaaday waxaan ogaan doonaa in duurku uu gali doono isaga iyo ninkii lagu magacaabayay Jarkutay iyo ay koodna gacanta lagu dhigi doono ugu dambeyn waxaana gacanta ku dhigay ninkii lagu magacaabayay markaasi abaanduulaha Mongooliska ee Olakjar kaas Cusmaan ciil u qaba doonayna markaasi cilmihi caruurta ama Cusmaan uu dhalay in uu u kaxeeyo dhanka Oljayto Khan si Oljayto Khan markaasi argoos uga dhigo Cala Adiin gacanta lagu dhigi doona isaga iyo Jarkutay iyo sidoo kale Baykut
laakiin ujeedka Olokjar waxa weeye inuu ka xisto ninka lagu magacaabo Calaadiin. hadda goosgooska horena ku daawana kaas hadda waxa nagu cusub maahan. goosgooska hadda kumaynan daawan laakiin kii hore ku daawanay midaas ayaadna ogaanaysaan daawadayaal. taasoo ka dhigaysa Cusmaan iyo Orhaan ba hadda kadib inay haddana u bixi doonaan inay soo badbaadiyaan Calaadiin maadaama uu gacanta ugu dhacay markaasi Mongooliska. haddaba asxaabta qaar waxay weydiiyeen Calaadiin iyo Orhaan yaa ku saxan wixii meesha ka dhacay. fikir ahaan hadday weydiisid anoon cidna u eexanaynin waxaa ku saxan ninka Calaadiin lagu magacaabo maxaa yeelay isaga wuxuu arkay in ciidanku meesha ku baaba'ay isla mar ahaantaasina Cusmaanna uusan joogin. Orhaan iyo Calaadiin ayaa meesha joogeen. Calaadiinna ciidan buu watay, Orhaanna ciidan buu watay. ninkii lagu magacaabay Glaudiyosna asagna filimka ku cusubna maadaama doorkiis awood la siinay waxaa loogu talagalay inuu ilmahan ka badsho oo ka guuleysto. marka sidaa darteed dagaalkaasna Cusmaan muusan ku dhex jirin. taatikadan dadkan way ka xumaatay ciidankana wuu ka tiro badnaa. Calaadiinna wuxuu go'aan ku qaatay in uu dagaalka isaga baxsado ciidankana uu markaasi uu dib u wado. sidaa darteedna Orhaanna wuxuu u fahmay markaasi inuu ninkani uu fulay yahay sida ayuu markaasi ugu caayay amaba uu ugu caayay markaasi inuu yahay fulay feerna ugu dhuftay. midda kale Orhaan asaga laftirkiisa wuxuu ku saxan yahay hadii si loo fiirsho in ciidanka oo sii baaba'aya markaasi Calaadiinna markaasi ciidanka uu haddana uu dib u kaxeeyo isla mar ahaantaasna ciidan fara badan niyadda sidaas uga jabeen ayna ku geeriyoodeen. waxaana Orhaan u sawirnaa markaasi maadaama ciidan fara badan la baabiyo oo geeriyoodeen oo ay meesha ku shahiideen isla mar ahaantaasina wax guulana aan meesha laga keenin dagaalkaas waxba faa'iido inuusan lahayn dadkaasina ay meel cidla ku dhinteen sidaas uu aaminsan yahay asaga. marka labadooda fikir waa kala duwan laakiin midka Calaadiin sida saxda u dhow. haddaba gabadhii Goonja ahayd markii iyadii Holofer isla hadlayeen Goonjana ay hadii Calaadiin wax soo gaar waxa ay ugu balama in aan dunidani aan gubo ama si kaleeto aan nafaf badan aan gubi doono aan baabi'i doono. ujeedka hadalka waxa uu ahaa hadii aynu fiirino markaan ku dabaqno markaas goosgooskii hore loo daawaday markii Calaadiin uu ka xisto ninkii Olokjar ahaa Mongooliska ayaa Goonja waxa soo gaari doonta markaasi in Calaadiin la ka xistay. xanaaq ayay xanaaqaysa iyadana waa ay carari doontaa. inta kadib ayaa markaa hadalkaasi ay dhihi doontaa hadii Calaadiin wax soo gaaro waxa igu balana inaan wax badan anigana burburin doono baabi'in doono. daawada adigu laftirkaas sida u aragtaa fikirkaaga dhanka hoose commenteska ayaa markaasi nagula wadaagi kartaa midaasna. anigu marnaba maanan jeclaysan lahayn Holofer iyo sidoo kale Goonja hadda calaamad laga dhex abuuro. ama Calaadiin marka dib loo soo badbaasho ayaa markaasi u badan tahay Orhaan iyo sidoo kale Calaadiin inay dib u heshiin doonaan. dhanka kale ma laga yaabaa naagta Sofia lagu magacaabo markii ay gabadha lagu magacaabo Boyina ay timaado dhanka ay qasriga ninkii lagu magacaabay Glaudios ee abaanduulaha hadda ma ku sugan in markaasi uu weydiiyo su'aalaha gabadhan ay ku tahay. mase laga yaabaa si sax ah inay ugu jawaabto oo ah markaasi gabadhani inay Cusmaan gabadhiisa tahay isla mar ahaantaasna iyada soo korsatay kiliyatan ay tahay markaasi sababtii uga arsan lahayd Cusmaan isla mar ahaantaasina ay mar walba ku xanuunjin lahayd. daawada maxaa u malaynaysaa? uma malaynaya marka horeeto inay u sheegi doonto aniga ahaan laakiin Sofia haddana si bay wax uga qaldayn iyaday inay sheegtaa laga yaabo markii qamrada cabto maxaa yeelay hadda ka horeeto ninkii lagu magacaabayay Lucas ba waxbay u sheegtay. Glaudios oo Lucas ka sareeyana waxa u malaynaya inay wax walba uga dhici doonto. markii sidaa darteeda laakiin hadda hore ugama dhacayso oo wax walba uma sheegayso. wax walba dib ayaa loo dhigaya inta doorarkan adag markaasi hadduu Ilaahay ku idmaayo awoodahooda si xaq ah markaasi loo sii doono. haddarna waxaaba ka harta umaleeyaha dhowr xalqoon baa ka harta seasonkan hadda waaba uu dhamaan doona asaga 200 inuu gaarayo uma maleynayo maadaama season 7 lagu dara la yiri sida seasonka saddexaad ba hadda ka hor uu ku dhamaaday 98 xalqood 98 inuu ku dhamaado uma maleynayo seasonka saddexaad ee taxanaha Gundiga Cusmaan kana waxa laga yaabaa in la gaarsiiyo maadaama hadda 2 bil oo kaliya harta 2 bil waa 8 xalqood adiga 195 meelaas inuu ku dhamaanayo ayaa rajeynayaa. season 7 filimka waa loo sameyn doonaa si loo sii anba qaado taxanaha Gundiga Cusmaan taariikhdiisa isla mar ahaantaasna weli taas oo aan gabagaboon. maana waxa idin sheegay markaasi in su'aal ahayd markaasi ma laga yaabaa in Orhaan uu sii hogaamiyo marka la gaaro taxanaha Orhaan marka la sameeyo hadda Cusmaan maaha. Cusmaan gebi ahaan marka laga soo dhamaado Orhaan doorkaas asiga ma matali doon horena waa idin kugu sheegay amaleeha mar hore qof kale ayaa matali doon maadaama wiilkan dhalinyaro uu yahay isla mar ahaantaasna filim weyn uusan hogaamin karin kaligiis aan lagu aamini karin. jilayaal kale ayaa matali doona marka insha Allah. daawada muuqaalkana wuxuu ahaa markaasi muuqaal kaleeto oo la xiriira isla muuqaalkii xalayta aan soo gelinay kaas oo aan uga hadlaynay markaasi goosgooskii labaad ee qaybta 187 sharxaadeeda kaas oo laga maarmi waayo oo falanqeyn badan ay ku harsaneed inkastoo kaas 15 minute ka badan ah xogaa asi hadlaynay haddana sida ay tahayna umuusan qalmin markaasi inta oo kaliya marka warka in lagu soo koobo. marka muuqaalkeena maanta intaas aan ku soo afjaraya wixii afkaara dhanka hoose commenteska nagula wadaaga aad iyo aad ayaadna markaasi u maasantiin daawadayaal
intaanu ku kulmi doono muuqaalkiisa xigna waxaa idinkaga tegayaa salaanta islaamka salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.